ciidamada ilaalada xeebaha booliska iyo howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub ee Soomaaliya ee loo yaqaano Atalanta ayaa waxa ay si wadajir u fuliyeen layli mideysan oo ay ku qaateen markabka dagaal ee lagu magacaabo Canarias ee dalka Spain iyadoo markaa layligan ay sida la sheegay laga sameeyay biyaha Soomaaliya. layligan ayaa xambaarsanaa qaababka marka la eego loo diyaarinayo ciidamada xeebaha ama ilaalada xeebaha Soomaalida oo ay ka helayeen khibrad iyo sidoo kale tayeen iyo inay markaa la baro waxyaabaha muhiimka ah ee tababarada arrimaha badda la xiriira iyo sidii ula dagaalami lahaayeen dadka kalluumaysta sharci darrada ka sameeyay biyaha Soomaaliya, kooxaha burcadbadeedka iyo kooxaha kale argagixisada. waxaana layligan uu xambaarsanaa qaababka la dagaalanka burcadbadeedka, dhaca hubeysan ee badda iyo ka hortaga maalgelinta sharci darrada ah ee dambiilayaasha iyo ururada iyo shabakadaha argagixisada ah. layligan waxaa la sheegay markaa inuu kamid yahay tababarada joogtada ah ee lagu tayeynayo ciidamada ilaalada xeebaha booliska Soomaaliya sarana loogu qaadayo xirfadaha kala duwan ee saraakiisha ammaanka iyo nabadgelyada ee badaha ka shaqeeya iyo arrimaha xeebaha. layligan wadajirka ah waxaa dowladda Soomaaliya sheegtay markaa inay hogaaminayay taliyaha ilaalada xeebaha gaashaanle sare Bashiir Cabdi Qaasim iyo sidoo kale taliyaha markabka dagaal ee Isbaanishka laga leeyahay ahna nooca loo yaqaano Canarias F86 ama Canarias F86. taliyaha markabkan ee howlgalkan hogaaminayna ee dhanka midooda Yurub waxaa lagu magacaabaa Carlos Castoza. si wadajir ayay uga wada shaqeeyeen in ciidamada Soomaalida ay markaa laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa tayadooda iyo aqoontooda dhanka la xiriirta xeebaha iyo sidoo kale badda, iyadoo oo Soomaaliya muddo sanado ka hor ay ahaan jirtay wadan la dhibaatoonaya colaado urur argagixiso. inkastoo ay weli arrimaha taagan yihiin, haddana waxaa meesha ka baxay inta badan saameyntii kooxaha burcadbadeedda ee Soomaalida oo sanado badan iyagu markaa maraakiib shisheeye ka afduuban jiray xeebaha Soomaaliya. walow haatan mararka qaar ay jiraan, balse sidii hore waa ay ka yiryihiin haatan oo waxaa dagaal la galay ciidamada midooda Yurub iyo ciidamada mideysan ee isbahaysiga ee dalalka caalamka ee markaa dagaal adagna la galay xeebaha Soomaaliya kula dagaalan burcadbadeed. ugu dambeynna waa laga adkaaday.